السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت أبغى داوديال كسر دوادا مركلة إيا قرش الديوب. إما أنت برنامج كان دين وذا وكدوين هاي برنامج كذي هوري وحنشي على هنا نسلا إجنو. أصدق هذا كلمة ضد وحبرشوا أقون إيه حكمة أي ما تسليجينا. إنجليزي وحكون نقول يعني education knowledge iyo wisdom. Sidoo kale waxaanu sii eegaynaa oo sii gudagalaynaa education-ka ama waxbarashada. Waxaanu eegaynaa qaybaha waxbarashada. Waxaanu eegaynaa ilaha waxbarashada laga helo. Sidoo kale waxaanu eegaynaa hababka wax loo barto ama wayska la maro. Waxaan kaloo eegaynaa saameynta ay waxbarashadu ku yeelato qofka marka uu wax barto kadib. Saameyn noocee bay qofka ku yeelataa ama maxay ka bedeshaa? Ugu dambeyn waxaan eegaynaa wadamada caalamku siyaabaha ay waxbarashada u kala isticmaalaan ama qaybaha waxbarashada sida ay xoog u kala saaraan. kala duwanaanshaha saddexda kelmadood haddaan ku horeyno waxbarashada ama education-ka waxa weeyaan waxa aanu ka soo barano goobaha waxbarashada sida malcamadaha iskuulka jaamacadda sidoo kale waxay noqonaysaa waxyaabaha aanu buugta ka akhrino waxyaabaha deegaanka inagu xeeran oo kale aynu ka barano waxbarashadu waxa weeyaan wax kasto aynu barano oo aan gudaheena ahayn laakiin aynu banaanka dibadda ka barano knowledge hadaan u nimaadno ama aqoontu waxay noqonaysaa wixii aan baranay maxaan ka dhaxalay maxaa macsuul ah aynu ka faa'iidnay maskaxiyan cilmi ahaan maxaa inooga kordhay wixii aynu ka helnay aqoon ah ayaa knowledge-ka noqonaya wisdom hadaan u nimaadno ama xigmad waxa weeyaan awood gudaheena ku jirta inta badanna waxa weeyaan wax lagu dhasho xigmad waxa weeyaan awoodda aynu ku dooran karno waxa inoo faa'iidada ah kana kagana baari karno waxa aan faa'iido inoo lahayn waxa inoo sheega waxa aynu oranayno iyo waxa aanan oranayn waxa aynu sameynayno iyo waxa aanan sameynaynin inta badan xigmadda marka laga yimaado inta Ilaahayna siiyay waxaanu ka baranaa waqtiyada adag iyo nolosha imtixaanada nolosha kala duwanaanshaha saddexda kelmadood waa sida haddaba waxaan eegaynaa waxay ku kala duwan yihiin education iyo knowledge ama aqoon iyo waxbarasho labada kelmadood waxa weeyaan way isku xiran yihiin oo aqoon lama helo haddii aan waxbarasho jirin marka knowledge-kii wuxuu noqonayaa qayb ka mid ah education-kii haddaan u nimaadno qaybaha waxbarashada oo aan waxbarashada sii guda galo waxbarashada qaybaheedu kala duwan waa saddex qaybood waxaa la yiraahdaa formal informal iyo non formal formal education waxa weeyaan waa waxbarashada qaabaysan kala sarsareysay classes kale laga bixiyo jaamacadaha dugsiyada ama goobaha waxbarashada informal waxa weeyaan waxyaabaha aad ka barato kulamada dadka oo kale trainingska ama tababarada dadka la siiyo oo kale ama self study adigu waxaad sidaada u barato adigu aad aqoon ahaan isu barto qaybta ugu dambaysa saddexaad waxa weeyaan non formal oo waxa weeyaan waxyaabaha aad khibrad ahaan u barato aad ka barato shaqada ka barato deegaanka kugu xeeran ka barato gurigiina iyo xaafadiina waxyaabaha aad khibrad ahaan u barato nolosha ku barto ayaa non formal ah waxaan u imaanaa daba ilaha laga helo waxbarashada ilaha ama sourceska waxbarashada laga helo waxay noqonayaan formal training wax la yiraahdo oo waa tii dugsiyada iyo jaamacadaha laga helayay informal training oo ah waxbarashada aad ka heshay ama aad buugaa ka akhriday ama aad meel iskuulka iyo jaamacadda ka baxsan adigu aad ka baratay ama aad sidaadaba isu bartay waa informal waa sida hore soo sheegnay tradition baa jirta traditional source baa jirta oo aqoonta laga helo waxa weeyaan waxyaabihii hore traditionally dadku ku soo dhaqmi jireen waxaad ka baranaysaa family-gaaga iyo dadka ka waaweyn waxaad ka baranaysaa deegaanka kugu xeeran iyo bulshada aad la nooshahay waxa jirta kale religion ama diin aqoon diinta laga barto waana ta ugu muhiimsan inagu islaam ahaan diinta islaamku waxa weeyaan iyada wax walba koobsatay oo waxa bini'aadamku iminka sheegaya ama science ha ahaato ama social ha ahaatee diinteena mar hore inaga inoo koobtay sidoo kale waxaa jirta aqoon laga helo science-ka ama waxyaabaha dadku tijaabiyeen haddaba waxaa jirta habab ama methods wax la yiraahdo oo wax loo barto waxa kamid ah teaching wax la yiraahdo ama inaad macallin wax ka barato oo process marto oo kii jaamacadda iyo iskuulka kala ah habka teaching ka aad marto waqti dheer ah waxa jirto kala trainings wax la yiraahdo ama
كورسي gaagaaban qaadanayso waqti kooban aad ku qaadanayso iyaduna waa hab wax loo barto discussions baa jira ama doodo aad ka qayb gasho dabeedna aad iyadana aqoon ka barato oo dad isugu yimaadeen marka aqoon la isku weydaarsanayo waxa jirta storytelling wax la yiraahdo oo iyadana wax loo barto oo dadku inay sheeko wadaag yeeshaan oo qof waliba wixii uu sheekahayo ama ku dhacay ama cid kale uu ka maqlay la isla wadaago taas lafteedu waa hab wax loo barto directed research baa jirta oo macallimiinta iyo jaamacaduhu ardayda ay u diraan inay research soo sameeyaan haddaba sideeba qofku markuu wax barto waxbarashadii ay u saameysaa saddex habay qofka waxbarashadu saameysaa ama uu u doortaa isagu inuu u qaato waxbarashadan uu baranayo kow qofku inuu skill barto oo skillkii noqonayo markaa inuu qofkii wax sawiridiyo kale electricity-giyo kale mechanic-giyo kale skillku waxa weeye qayb kamid ah aqoonta waxbarashada qaybta labaad waxa weeye knowledge inuu qofkii knowledge ahaan u qaato taasoo ku xiran qofku waxa uu dooranayo iyo faculty-ga uu qaadanayo jaamacadda isagu waxa uu dooranayo ku xiran tahay markaa inuu qofkii degree qaato master qaato taas waa knowledge skill ma aha markaa qaybta saddexaad waxa weeyaan attitude qofkii habdhaqankiisii iyo siduu dadka ula dhaqmayay inay wax ka bedesho waxa jirta qof inta soo degree haysta hadana attitude-kiisu ama habdhaqankiisu aanu ahayn qof wax soo bartay oo kale waxa jirta qof aqoon leh laakiin aan skillkii iyo xirfadii lahayn uu ku shaqaysan lahaa marka saddexda hab ay qofku kala saameysaa aqoontu inuu qofku skill ahaan u qaato inuu knowledge ahaan u qaato oo degree uu iska qaato iyo inuu dhaqankiisii iyo akhlaaqdiisii ay wax ka bedesho oo akhlaaq ahaan qofkii u toosiso hadaba saddex wadan baan ku soo qaadanayna waa China, England iyo USA ama Mareykan waxa la yiraahdaa China inta badan wuxuu xoog saaraa skillka ama xirfadda wana sababta oo electronics iyo technology-da adduunka ugu haysto inta badan isagu aqoonta iyo attitude-ka xooga ma saara laakiin skill-ka xooga saara England oo kale waxa la yiraahdaa skill-ka iyo attitude-ka xooga saaraan iyagu aqoonta jaamacadeed iyo degree-yada iyo waxa ma tixgeliyaan qofku inuu skill leeyahay shaqaysan karayo akhlaaqna leeyahay oo dadkii la dhaqmi karo ay eegaan Mareykan oo kale hadana nimaadno waxa la yiraahdaa isagu wuxuu eegaa knowledge iyo attitude skill isagu ma eego qofku inuu aqoon leeyahay degree sito iyo in akhlaaqdiisa iyo dadka la dhaqankiisu fiican tahay Soomaaliya hadaynu nimaadno oo anigu aan iska qiyaasayo aanay ahayn wax la qoray ama meel ka akhriyay laakiin sida anigu ay ila tahay fikirkayga una tahay ceebayna maayo laakiin sida u badan tahay inagu aqoontan xoog saarnaa kaliya knowledge baynu qaadanaa degree aynu qaadanaa master ila PhD waxa laga yaabaa qof inta soo shahaado haysta inaanu khibradii ku shaqaysan lahaa ama xirfadii aanu lahayn sidoo kalena akhlaaqdii aynaan xoog saarno aynu badana qofkeenu isagoo shahaadooyin sita hadana aanu dhaqankii aqoon yahan lahayn oo sababta ninka aqoonyahanka isagoo master sita maanta wax u musuqmaasuqayo wax isu daba maranayo qabyaaladii jeebka ugu sito inahasan ku soo koobaya maadsantiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaah.